dagaal baana dhaxmaray annagii dhagxaana wadanay Eritreankana qoryo iyo baakaami iyo sabano ee noo soo baxsadeen iyo bambooyin bambada iyo xabadihii nala dhaceen Rahmaan Rahiim alxamdulillaah anigoo ah magacayga Cabdimaalig Cabdullaahi oo jooga haddeertaan oo jooga Garowe dowladda Puntland alxamdulillaah ilaaha ma haddaas iska leh annagii oo ka soo baxsanay dalka Eritrea oo nala qalday oo nagula qalday si xaqdariya oo nagula dhahay qadar baa lidin qaadayaa qadar nalama qaadin waxaa nagala rogay Eritrea kadib dhibaatooyin fara badan iyo jirdil iyo dhibaato iyo wax walba waa soo aragnay alxamdulillaah maamooyinka Soomaaliyeed ee waxa uu sheegayaa ee caruurta ay ka maqan yihiin inay caruurtoodii ay u doodaan ee si degdega in loogu keeno caruurtoodii marka intaas waa uu sheegayaa maamooyinka Soomaaliyeed aniga xerada waxaan maray militariga rag ugu horeeyaan kamid ahay waxaan maray xerada militariga ee xerada commandada iyo xerada special force-ga ee badda intoodii waa soo wada maray intaasna waxaa ku soo wada kulmay dagaal iyo rafaad iyo dhibaato iyo silac iyo saxriir ma fahan iyo jirdil wax walba anigoo ku soo kulmay alxamdulillaah maanta hadda ka soo baxsaday waxa isi aad boqolkiiba boqol ii soo dhaweysay dowladda Puntland waan u mahadnaqayaa dowladda Puntland waan u mahadnaqayaa aniga waxaa ka tagay muqdishoan deganahay reerkay muqdisho degan yahay hooyaday muqdisho aabahay ciidaydo dhan muqdisho wada degan yihiin waa ka waayo marka dhibaatada sida caashiyaysa maxay dadka la wadaag maxaa lagu soo dad baa la idinka laayay dad baa nagala laayay dadka nagala laayay waxa waaye annagii waxa isku dhacnay raggii Eritreankiya markaan isku dhacnay Eritreankii dagaal baana dhaxmaray annagii dhagxaana wadanay Eritreankana qoryo iyo baakaami iyo sabano ee noo soo baxsadeen iyo bambooyin bambada iyo xabadihii nala dhaceen alxamdulillaah oo waxaa naga dhimatay rag adiga ilaa tiro gaarayso 12 qofood ilaa ay dhaawac oo gaarayo adiga 50 iyo 60 meelahaas alxamdulillaah ilaa hadda meesha daawo ma taalo oo wax ma taalo ilaa hadda rag baa isbitaalo ku jiro rag baa jaban rag baa gacan la rag baa lugla ilaa hadda rag baana wax arkin oo dhul hoostiisa ku jiro marka dowladda Soomaaliyeed annagii waa nala qalday rag la qaldo caruura oo wax baranayaan ahayn waa nala qalday dowladda Soomaaliya waxa na qalday waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin marka waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay xuquuqdeena iyo dadkaas inay meesha ka soo wado si degdeg ah ugu soo wado oo ummadda Soomaaliyeed iyo hooyooyinkeena ay ka maqan yihiin wiilasha marka intaas dowladda ka codsanaya alxamdulillaah waana mahadsan yihiin dowladda Puntland iyadana soo dhaweysay haddana waxa la joognaa wasiirka amniga ee Puntland asagiyaa la joognaa asagiyaa si gacmo furan nagu soo dhaweeyay waan mahadnaqaynaa muqdisho banaanbax maanta ka waday oo raadinaya dad idin committee hooyo hooyooyinka Soomaaliyeed waa inay u doodaan si zaa'id ah ay ugu doodaan muddooyin ilaa iyo adiga madaxtooyada in lagu naqnaqdaan ka codsanaynaa ee raggeedii caruurtoodii ee meesha ku raafaadsan ee ku silacsan rag baa indhala rag baa dhintay waalidiintoodii aana ogeen rag badan baa dhintay oo waxaa kamid ah cunug hadda aan aqaano waxaa kamid ah Cabdisamed reer Doodi waaye marka Cabdisamed wuu dhintay hadda Allah u naxariisto aabihiina mar badan uu idaacadaha uu ka hadlay laakiin wax ilaa hadda arin wax Cabdisamed waxa uu degan yahay aabihii Beledweyne marka waa reer Beledweyne dagaalkii anaga iyo Eritreankii ku dhintay asagii marka yarkii waa igu gruubo ahay Allah u naxariisto marxuumkii wuu dhintay gaaladii Eritreanka inta sawirtay waxay dhahay ninkan buurto ka soo dhacay ma fahan buur ayagiyaana dilay waxa meesha ka dhacayna waa rasaas waa rag badan dhintay hadda raggii markii waagii saasna liskuma aqoonin raggii dhintay Allah u naxariisto marka dowladda Soomaaliya annagii qiyaanada nagu waday hadda annagii alxamdulillaah waa ka soo fakanay ee waalidiinta ee maamooyinka ee ummadda Soomaaliyeed ee waxaan ka codsanaynaa ciyaalkaas inay si degdeg ah noogu doodaan ciyaalkaas walaalaheena in meeshaas laga soo kaxeeyo si degdeg ah
marna ma ilakum ها أنا سدح هذه لبا سنة إسديد بلود واجري لبا سنة إسديد بلود واجري لكن مدحوينها وحنا نائم هذا سدح مر ونائم هذا دولتوس كنا تسنا وحنا أو إلكتريان كأنا برا واتسنا وان جاردنا مركو جاردس كني أو أركو هستعلن كون نقصو جلا هستعلن كمركي ونقصو جلا وحكلا أري كلا ونقديه معي وأنا جينا بوما إيجرنا وضنا هرتين وساس كسور استاجع سجين مدحويني ودلك الصومالي كرم در لبس ما يسنا وح لبس ما يسنا لبس معناها ما مدحوينه وقت هنا ضيعنتي هنا ضيعنا أو ماشي أكو رفعتنا أو أكو سلعسنا وحول بوجي ذا مدحوينا وحكة مديه كرو مفهمت وحبك مديه كرو مدحوينا مركا ومد الصومالية waxaan ka codsanaynaa meeshaas ciyaalka si degdeg in meeshaas loogu soo fursado badan waa u helnay laakiin Janis wuu nasii waayay intaas waa ka xumaa Janis wuu nasii waayay isaga Janis nasii waayay markii oo heesta calanka oo qaado eray kale dhimaay uu naga sii jeesanaa gaarigiisu kala maxay ka qancay inaad mid fafaad soo maray silc soo maray aad tahay adii saaxiibada waxay noogu qancayaan anigii nin la yaqaano ahay oo meeshii haddana ka soo goostay meeshii inaa ka soo goostana wax aniga hadda maanta aa caddeynaya ee TV-ga qaranka ah soo fadhiista waxa waaye maamooyinka Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed ee caruurtooda ee ka maqan tahay aniga alxamdulillah waalidkayga waa wacay oo iga warhayaa inteenaan waalidiinteena naga warhayaan rag baa hadda la sheegaa inay wadada ku soo jiraan rag baa hadda ilaa hadda xirana la sheegaa rag baa wadada ku soo dhibaataysan marka intaasna waxa kalifay waxa waaye waa Fahad Yaasiin iyo Farmaajo marka waxaan sheegaynaa dawladda raggaas inay si degdeg ay ku soo kaxayso marka annagiina waxa ka rabnaa dawladda xuquuqdeeni wax daawadeeni waxeeni wax walbana waa ka rabnaa dawladda annagiina waa ilaa reer maxkamada waa isla tagi doonaa insha Allah duu ilaahay naftu nagu soo